بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan soo dhawaada sharaf iyo karaamo war degdega midadka askar la sheegay inay yihiin ciidanka Samaroon ayaa daadsan banaanka tuulada Dixda Sheekh Awaare iyo tuulada Cabdiqaadir inta u dhaxaysa xogaha wararka iyo macluumaadkan hadda helayna waxay tilmaamayaan in tuulada Dixda Sheekh Awaare iyo deegaanada hoos yimaada si weyn looga dareemayo dhaqdhaqaaqa dagaalada halkaasi ka dhacay rag saraakiil oo ka tirsan ciidanka militariga Somaliland ayaa si qarsoodi waxay u duubeen muuqaalo naxdin leh askar meedad ah oo la sheegay inay yihiin Somaliland iyo Samaroon oo daadsan banaanka tuulada Dixda Sheekh Awaare iyo tuulada Cabdiqaadir inta u dhaxaysa waxa maanta halkaasi ka dhacay dagaal fool ka fool oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha doordooriga u dhaca dagaalada halkaasi ka dhacay waxa la ii sheegay in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan oo dhinacyada kala gaaray sida saxda markii loo eego dagaaladii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacayna Dixda Sheekh Awaare iyo deegaanada hoos yimaada xogahan helayna waxay tilmaamayaan in xubno sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga Somaliland ay xataa dagaalada qayb ka ahaayeen taasi oo la yaab iyo ama ka ku noqotay dadka Soomaaliyeed in isla markaana ay xaaladdu marayso meel aad u adag waxay xogtu tilmaamaysaa in dhowr sargaal oo sarsare oo xaaladan la socda ay warbaahinta u sheegeen isla markaana ay si cad u bidhaamiyeen in ay og yihiin oo ay la socdaan xaaladdu hadba meeshay marayso laakiin askarta Samaroon dhowr mar oo kala duwan baa inta askartooda la laayay meedadkooda inta la soo sawir bayaan kareen nimanka Samaroon kala yiraahdo laakiin dagaalkii maanta ka bilowday inta u dhaxaysa Dixda Sheekh Awaare iyo tuulada Cabdiqaadir dabcan niman la yiraahdo Samaroon qaaday laakiin wixii ka raacay waan ogeyn horta hadii mal dagaal meel uu ka dhaco khasaare ee mashiin dhaawac uu jiri doona laakiin sida saxda markii loo abaaro anaguna ka been sheegin dagaalkii ka dhacay inta u dhaxaysa Dixda iyo Cabdiqaadir khasaaraha ugu badan nimanka Samaroon soo gaaray sababtoo ah ninku markuu weerar tago iyo ninku markuu difaac ku jiro oo weerar iska difaacida uu jiro kan weerarka soo qaada inta badan waxyeeladu soo gaartaa waxay xoguhu inta ku darayaan in xubno sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga Somaliland iyaga laftirkooda lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha ficiladaasi waxaana rag saraakiil ay warbaahinta u sheegeen inay og yihiin isla markaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqa halkaasi ka socda laakiin Dixda Sheekh Awaare iyo tuulada Cabdiqaadir ba waxa la sheegaa in ay arrimo badan ka jiraan oo ku saabsan in xal waara laga gaaro walow markii dambe dhowr mar oo kala duwan warbaahinta rag saraakiil ay u sheegeen in ay ka warqabaan oo og yihiin dhaqdhaqaaqa halkaasi ka jira laakiin iyagu ay wax badan xiriinayaan taasi oo dabcan ku tusinaysa in militariga Somaliland ay laftirkoodu dagaalada qayb ka qaateen waliba meedadka halka daasan ciidanka Somaliland ay qayb ku jiraan waxa sidaas la mid ah toddobaadka la soo dhaafay jirtay aragti aad iyo aad u la yaab badan oo ku saabsan in ciidanka la yiraahdo Samaroonku ay warbaahinta la wadaageen una sheegeen in ay ka xun yihiin oo ay aad u cambaareynayaan dagaalada soo laabtay walow markii dambe lagu eedeeyay Samaroonka laftirkiisuba in iyagu ay dabada ka riixayaan xaaladda toddobaadka la soo dhaafay suldaanka guud ee beelaha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi ayaa warbaahinta si la yaab leh oo ama kaag leh wuxuu ugu sheegay in ay ka warqabaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ciisuhu ay wadaan laakiin sheekada yaab kala waxay tahay in ciisuhu ay og yihiin isla markaana ay ka warqabaan xaaladdu halka ay marayso walow markii dambe la sheego in maalinba maalinka ka dambeeya ay xaaladdu marayso meel adag afar sargaal oo sarsaro oo militariga Somaliland ka tirsan iyaguna warbaahinta waxay la wadaageen in ay iyagu hubka dhigis sameyn doonaan oo ay dhinacyada u dhaxayn doonaan laakiin sida saxda markii la eego waxa jirta fikirta ka duwan oo ku saabsan ciidanka beesha Ciise maxaa talaabo ah oo ay qaadi doonaan hadii Samaroon iyo Somaliland markan dagaalka ay toos ugu soo biiraan waa in Ciise jooga Djibouti ay soo gurmadaan waa in Ciise jooga Ethiopia dagaalka ay ku soo biiraan wax ka dhaxeeya ma jiraan sida saxda ah taas bay noqon doontaa laakiin hadii wax kale la xiriyo dad badan waxay aaminsan yihiin in xaaladda lagu dhameyn karo wada hadal iyo ogol isla markaana dadkan walaalaha ah ee wada dhashay dagaaladooda la soo afjari karo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa bishii la soo dhaafay sidoo kale si weyn ugu eedeeyay dhinacyada ku lugta leh dagaalada in ay xaaladda xakameeyaan isla markaana wada hadal xaaladda lagu dhameeyo laakiin xogtan helena waxay tilmaamaysaa in rag saraakiil oo sarsare oo ka tirsan ciidanka beesha Samaroon ay sheegeen inay si qarsoodi hub uga heleen walow ragaasi
magacyadooda darajooyinkooda iyo teetaladooda la qariyay sababtoo ah haddii de warka banaanka loo keeno xaaladdu farahay ka baxaysaa